soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Adam sidaad hore iga barateenba waxaan idiin soo gudbin jiray journalist macnaha aad daawan karto si aad luqadaada Englishka aad u horumariso way jiraan dad badan oo arrintaasi ka faa'iideystay ama ku faa'iiday ama yani wax iskaga bedelay balse waxaa jiro dadka qaar oo maaragtay jecel inay aflaamta daawadaan yani filmada daawadaan hadaba filmada aad daawanaysid ha ahaadaan aflaam maaragtay English ku baxayo ama luqadda Englishka lagu hadlaayo Netflix-ka oo kale wuxuu leeyahay maaragtay inaad adiga bedeli karto luqadda ay ku hadlayaan ama filimka hadii yani luqad kale uu yahay ama wadan yani hadda Faransiis oo kale ay tahay luqadda Englishka oo kale adiga ka dhigan karo hadaba waxa jiro maaragtay dad fara badan oo aan heli karin Netflix-ka ama maaragtay aan gadan karin ama maaragtay source-ga ay ku gadan lahaayeen ama yani wixii ay ku sameeysan lahaayeen aan heli karin hadaba maqalkan waxa rabaa inaan idinku la wadaago alternative maaragtay Netflix-ka aad uga maarmi karto hadii aad rabto ama aad tahay dadka jecel inay aflaamta daawadaan ama filmada ay daawadaan hadaba aflaamta ama filmada waxay ka mid yihiin meelaha maaragtay aad ku horumarin karto luqadaada Englishka hadii aad rabto inaad horumariso ama aad rabto inaad horumariso speaking-kaaga ama hadalkaaga ama dhageysigaagaba hadaba marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago meelo aad ka daawan karto aflaamta ama filmada source-ga ugu horeeyo oo markii inaan idin wadaago waxay tahay YouTube-ka of course waxa jiro maaragtay dad soo geliyo filmada aan YouTube-ka هذا movies oo kale hada ku qortid ama film hada ku qortid YouTube-ka waad helaysaa yani aflaam maaragtay luqadda Englishka lagu hadlaayo oo maaragtay aad daawan karto laakiin waxa jiro maaragtay dadka qaar doonayo filmo ayaga gaar ah in ay helaan ama yani filmo ay ayaga jecel yihiin in ay helaan YouTube markaas waxa laga yaabaa in aad ka heli karin marka waxaan rabaa laba source kale inaan idin la wadaago oo ka duwan YouTube-ka iyo Netflix-ka labaduba midka ugu horeeyo wuxuu yahay inkastoo aan midkaasi aanan tijaabinin ama aanan waxba ka daawanin wuxuu yahay waxa la yiraahdaa subtoday.rs I think inuu sidaas yahay laakiin midka aniga aan tijaabiyay oo aan rabo inaan idin la wadaago ayaa wuxuu yahay Sflix waxa la yiraahdaa Sflix marka yani website-yadan markii aad wax ka daawanayso dibkooda ayaa wuxuu yahay markii aad website-ka soo dhex gasho search-ga markaad rabtid inaad ku qortid filimkii yani wuu isbedelaya sidan oo kale ayuu noqonayaa waa idin sharxi doonaa halkan ayaan soo dhigi doonaa so sidan oo kale ayaad u isticmaali kartaa marka qaabka u isticmaalayso waa in tusaya wuxuu ku sameynayaa yani marka search-ga aad ku dhufato website kale ayuu furaya yani xaysiin maadaama ayaga aad lacag siinayno oo ay free yihiin xaysiin ay lacag ku helaan marka so search-ga marka ku dhufato wuu kula boodaya meel kale ayuu tagaya yani wuu isbedelaya so waa inaad ka soo laabataa aad ku soo laabataa website-ka saxda ah cancel aad leedahay waad ku soo laabanaysaa website-ka saxda haddii computer aad isticmaalayso ama hadda telephone isticmaalayso labaduba waad samayn kartaa so markasta uu kuu diro meel kale waa inaad ka soo laabataa so ugu dambeyn markaa search-ga uu ku ogolaado oo search-ga ku qortid filimka aad doonaysay oo aad search garaysid waxaad helaysaa filimka aad doonaysay markaad heshid filimkii haddana markaad rabtid inaad ku dhufid haddana meel kale ku geenaya haddana waa soo cancelaysaa so ilaa marka dambe uu muuqaalka kuu daaro so muuqaalka markuu kuu daaro ilaa xalqadaas aad ka dhamaysanaysid wax kale xaysiina ama meel kale uu kuu diraayo ma arkaysid waxaan jeclaaday marka inaan intaas idin la wadaago muuqaal gaaban oo iska noqon doona saas u dheereen sababta idin kugu la wadaagayna waxay tahay maadaama ay jiraan dad jecel in maaragtay ayagana filmada ama movieska ay daawadaan si luqadooda ay horumariyaan maadaama journalist-ka aan idin diray ay maaragtay waxay soo gudbinayaan yani wax kooban ay yihiin harjeenaya maaragtay inaad dadaali doontaan oo luqadiin horumarin doontaan aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii fadlan channelka aad ku cusubtahay waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo birto subscribe saarto ugu yaraan hal qof asxaabtaada ka midana aad la wadaagto waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum